السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشيدا قيمها يقدر أنت مدن وملك استوى نجد داول إنسان عالم يدلك جوده سبا وحن هالكن إذا كسو جد بيننا برنامج كانوا بحنين مضشة أبوانك برنامج كاسوا برنامج أنكور إنسانه وأبوانين تكون رقم مقالة برعو قيبه هذا كردوان هالكاس أو أنش على سنة إن بالشدة أسوق بيان مسكح دودا وحي كسر محدي إلهي سبحانه وتعالى وكم من يستي هذا واحد قبطن يقول السجن أبوانك عنك اللي هذا أبوان أحمد محمد نوح لوني قانو نانيستي عنك أبوان دكو بل وحن ويدينيا مركو هريسا قارتي ولا شيء يسندك ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhashay 1927 bishii sanaad inkastoo qoliyaha reer Burco aanan jeclayn baashana la weydiiyay hadana 27 baan dhashay adigu aad baad maasantahay abwaan suugaantaada faraha badan waxaan ka soo qaadanay dhowr gabay kii kugu dambeeyay ee bal horta aad samayso maxaad u bixisay kii gabayga ugu dambeeyay wuxuu soo baxay bishii May ee dhaweyd 2016 magaciisana waxa la yiraahdaa cid ma dhaafa waxaan jeclaysanay bal inaan u soo gudbino bal cid ma dhaafa gabayga ka sheekeynaya cid inaanu dhaafayn cid ma dhaafa iyo abwaanka ayaan u kala baxayaa waa abwaan Axmed Maxamed Nuur Dhako. bismillahir rahmaanir rahiim wuxuu yiri bariyaha gabay caama cilmiga oo farsamaysan عارفين تفهمان قف عروبي جعلايستو عرورتينا كوريسان عقلقودا طيايا عيدان كيني يحوقنا عدودودا adkeeya dulmana cabana ayana calooshiisa daweeya gabay ciida u hiisho calankeena difaaco cadowgeena la laaya mid aqeedada dhawra gabay diinta u cilma xaq aan ku cadeeyo sabol ciida ka qoostayna moraalkiisa cabeeya iyo bariyaha caliyow murti caalamka gaadhiyo tixdan caan ku ahaa iyo codkayga ma dhawaaqin caawase waan gabyaya hadii caawa hotel iyo xaflad la igu casuumo marka la carabaaban mashraxa saara caga cid mucaarad muxaafid madaxdii arigeenu sidii aanu culownayo hubka ciida gubayaan caaralub ku ridaayo calooshay ka naxaano anigoon cid maagin ba hadhow layga cawda عديي أو كتلابة عادة ويا كلاتية قبل يقعد مدافع هذا عاود دعيه اللي هي عادي لها وعرك الروب نقصي عام أو وذا قارة برينا وعرك هورو علشي بركدي يبو يدي بعوانا يعرف كود قاية وحكلو عيد كل قيد يوم على انت عمل بيري عيدا كي واحد ساي فتحية عيدا كجدي عدلها درس كسر نصو على الحمامها عديي أو كتلابة عادة ويا كلاتية قبل يقعد مدافع إلهو عافي بكانك عذرو دنا اللال عدنا يالي حنوسان حتى نعاوى إلى هذنا شيبان عود لغو دونيو من دي عداء اللو عبايستي قلينكيو اللو عبايستي قلينكيو wixii aagad kiniina caasha lay gelinayay aan sharooba cabayniyo cirbad la igu mudayay way ku caaridayaano dhakhtarada cabanaya cudiyay oo ka talaabaya caada weeye kalaatiya gabayga cid ma dhaafee cunto aan tayadeeda cid ka baadhan lahaynin qolku raag la cabeeyay iyo kimikaal la cunaayo ilma caawa macaan liyo عرور لي كرديلايو علة فايلة كنتيو عذر باقدتاني عيدنا هودن لافتي أرجع هودن لافيا إنه بيرن عيد هذا العوا إلى هذانا كان عصتها عبنيسة عديي أو كتلابة يا عدوية يا كلاتية قبل يعد ملافه عبدو ما ممكن تشوقا جودي ويا عمرينو تكدا على هايستو سيد اللو عسرييو أنت لامع عصيبة عكتا عليها سينيو وحافوق لعيوقيو وحافوق لعيوقية وحا عيل لقود أي عافماد لديسايا هدان عاوة المامنة معارض كعبانايا عديي أو كتلابة يا عادوية كالاتية قبل يقعد مدافع سياسة دي عالم ليناقا سو عرض دوباي السياسة دي عالم ليناقا سو عرض دوبايو عالم كيني للابايان اعترافنا للدونين حمر ليسلع ويو تركي قالوا عرارايو هدان عاوة المامنة أراريو عراريسية عيدان داتا مويدوي حكومة عبانيسا
cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee haddaan aamus caddaysto intaan koorta cafuufo codka saylan ku riixana murtidaan curinaynaa dadkay ceeshu ahayd ee siday caanaha geela u cabbaayey taxaa iyo shicibkii baa cabanaya su'aal weeye cajiibahe caynkabaan u hadlaayo lagu ceebbaxaya cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiyo gabaygii cidma dhaafee taasi waaba shil caamahoo aar sidiiqba caddeeyo col jawaan hor kacaayi iyo sooraan baa ka cataabayoo shiikhal caashiq mukhtaar iyo booba nuux carrabowyo jaamacdheer iyo caad iyo abwaan caata tilmaanyo jaamacdheere iyo caad iyo abwaan caata tilmaanyo cashuur baa ku wareeray cillad weeye abwaanba uu ka ciid malaayey ee caynkaa baynu ku dhaafno cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiyo gabaygii cidma dhaafee aan siyaasaddan caawa cirqiyo wax ka sheego horta deegaankii aa cugateene aynu moodnay carruurtu caaddaasay marayaan kaa daawacaasimadeenna caynka ay u dhiseen soolteelkaa cararaayo oo cawiya maalin ordaayo meel cusayba furaya colkii sool iyo awdalla lagama soo cabanaynin ciddinnadaa hadalkiisaoo hooyadii carrigeenniyo berbera waa ka caddeeyey muraadna ceebi ma raacinoo xoday ways celiyaanoo ceelkoodii laga doortay caalam bay ka dhigeen ceerigaaban lafteedana nin weyn baa u cabbaystay cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiyo gabaygii cidma dhaafee aan mucaaradkan caawa tala caama u sheegee abdioo maamulkan joogaa ciddii ay la shiraanba haddii aa calmataan xidhiirkay codsadaanba idinku caashaqsantiin raadkoodun cidhbisaan idinkaan caadi ahay cid qudhaa taladeenni cagahooda dhigteen cid qudha ayaa taladeenni cagahooda dhigteenoo idinkaan caadi ahaynoo cakiraaya danteenna ee jamaalow caynkan la diid cabdina maanta u sheeg haddaa caari tihiin caynkii aan ku naqaannay marka cashadu waftigoodu yurub saara cagaaye washington ka caweeyo calashan xukuumadda washington ka caweeyo miyaydaan ruushkan caddaadiya jaynahan caalamka haysta idinku ceeleelyadiinna u carraabin karaynin maalintay cali oo carabaa u kacaanna talaabiid carrigeeda cilaaqaad la samaysta cirku soo dumi maayo dhanunbaa ictiraafku ka soo caariyi lahaa cimrigiiba mucaarad oo basid buu ku caddaaye caynkiisuu shaqeeya ama caawa muxaafid wax kale loo carrabaabay oo ceshadiisa sugaaya ku caddeeya warkiinna cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiyo gabaygii cidma dhaafee aan xukuumaddan caawana tala siiya cajiiba maalintaad cod ku fuushay iyo cagidan maanta la joogo guul waxaa curiseen iyo dan waxaa cakirteenba waa cadceed duhur joogtoo ilaan caad qarin maayee cid kastaaba ogsoone ammaantanaa cimrigiinba isu sii camirtaan arooskeed ka ciyaara waa ku ceeb dhaqankeenna cid kaley ku wacnayde cagta maa u dhigtaan cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiyo gabaygii cidma dhaafee ictiraafkan dadkeenna caalamkii ku wareershan cod yaraan ka idhaaho calankan saaran dushiinnee aan caqiida islaam iyo tawxiidkii ku cuslaynay caddaankii madowgii cidna loo baryi maayo gaalana waa cadowgeenna oo mucjisadii cadcaddayd ee caliyow nebigeennaba way ku caaridayeen cumarow inuu gaal ictiraafaa cimrigeed dhici maysa waa sidee caqligiinnu calankana aragtaan cirshigaa idamkiisa caydiidow laga keenayoo waa casiis magaciisoo ilaah baa ictiraafay ciidan aan la arkayn iyo awliyaa cidhif joogtoo cid kalaa ku shaqayso wallaahi baan carrabaabay cimrigii dhici maayee ha ogaata cid moogi haddaynu caabudno eebbe intaan diinta cisayno aan cibaadada oogno oo cadaalad samayno cirka roob dhibca weyn buu caadilnoo shubilaayo ciidan boodhku ka duulaa cambar noo noqon laydoo dhirtan cawlan lafteeda ayaa midha ciiri lahaydoo cuudkan sii madhana ayaa rabbi soo celin lahayo cadkiisii iyo caana cidimay madhiseenoo
cawskiibaa bixi laayaan cagaar daawan lahayno malab baan cuni layno togogaa carrigeenno durduraan cabbilayno ceelasheenna shidaalkaa caadi loo qodilaayo dadkan caalamka joogo soo tahriib carara ayaa camalkaa daylaa waa markaynu casiisku caynka uu fara yeelle ee xaqa aan ku caddaanno waa markaynu casiisku caynka uu nafara yeelle xaqa aan ku caddaanno caynku sheegay qur-aanku fii daarayn cisi weeye man abbaa cidda diiddaynaa ifka oo ay carcaraaftiyo cadaab akhire weeye falnacuudu billaah cudiyey oo ka tallaabayo caada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee dadkeennaan caadi ahayn dadkeenna ayaan caadi ahaynoo iyagaa cidla roorayoo dhalanteedka cirmoodayoo qardajeex cararaaye way caqiidan dhinteenoo way iimaan cawarmeene cadiimka u gargaar cudiyey oo ka tallaabaya caada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee cid isdoorisa mooyee caadilqoon ma dulleeyo culays haddaa aragtaanna camalaan falle weeye caynku sheegay rasuulku allahumma salli wa sallim barak alayh toobadaa celisaan iyo samirkaa cuskataan baa kaa dulqaada cidhiidhi toobadaa celisaan iyo samirkaa cuskataan baa kaa dulqaada cidhiidhiye cidise taa uma jeedo hadduu cuudku ka leedo ay abaari ku ciirto rabbi looma cataabee cid kalaa la baryaayo siday kaa celinaysaa ilaah baa na ciqaabay ee naga caawi dhahnaayo gaalaa loo cararaa cid mutaysatay maahee mayeedhaanka cidiisi iyo maatadaa cabanaysiiyo naxariista casiiska cirku hadduu ugu hoorana daad baa cooshada qaatiya waa calaaca labaadoo daad baa cooshado qaatiya waa calaaca labaadoo dawarsi caado xun weeye xamdigu caadil mudnaana hay-adaa loo celiyaa cabdi ow deeqbixiyii sifihii eebba caddaystay iyo magaciisii cuslaabaan ku casuunnay addoonoo tiifiigu soo celceshaayo sacabka loo camiraayo damiir ceebta ka diiriya cid ka doodda la waaye dulqaadkaaga cafuu nagaga baaja cadaabka cudiyey oo ka tallaabaya caada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee aan caawiya maanta akhriyaayay cabbaar caarahoor iyo shuux iyo waa carruura cabsiise iminkunbuu cirku horay hadduun kowdha ciyaarta waa kan maarkii cuslaaye bal dhegayso codkayga barbaartii carrigeen iyo ciyaalkii waddankeenna iyagaa ciidda dhisaayoo caawin doona lahayna culunta ugu dadaala calaashaan kambayuutar caynkii boorigaraamka maskaxdii cadowgeenna ay ka soo camireen bay inoo soo celiyaanoo codkiisii iyo muuqu waa yarkii ina caabiyo cid buu kugu xigaa caqligiis iyo maankana caddaankaa yurub bay u carbuunan yihiinoo cid kalaa isticmaasha cudiyey oo ka tallaabaya caada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee cabbirkiis iyo shiisku ciddu maanta hayaana shantan weeye cadaawe caadaqaate tijaara cidna aan u tudhaynin keligii inuu ceesho dadkuna caydh bakhtiyaan ku caddaystay go'aanka ninkii cuudka lahaayee ciidan baayeeran lahaayee dadkan caawin lahaayee camal noo furi laaye carrigan maalgashan laa saqabeel iyo caydh iyo cirka baahidan gaadhay iyagaa curinaya waxaa ciidan tahriibayna iyagaa cawda u gooyey shicibkii cabanayay dhiiggoodii cabbayaanoo cunahayna hayaane iga hooya caddaynta caliyow soo dejiyuu liisankiisay ku caddaydo caalamkuu ka dalbaayo dekaddaa cimrigiiba camalkiisu ahaa waa la yaabe cabdow calaashaan ruficii iyo markabkii iyo caagad iyagaa iibiya caawa waa tijaarkii kii keenayba dee calaashaan ruficii iyo markabkii iyo caagad iyagaa iibiya caawa iska sii dabaceeshkiina cawdi bay u tareen 20kii gamcoodee midba aynu gadaysay iyana waa camalbeel inay ciidda nacaanoo cid kastaaba tahriibtay nafta ceel ku ridaan tijaartaa curinaysa cudiyey oo ka tallaabaya caada weeye kaleetiya gabalgii cidma dhaafee kuwa dhoofiya cuudkuna ciddii neefka lahayd baa caadi loogu tagaa 20kii gamcoodee midba ayn u gaadaysiiyo jeebliina waa camalbeel inay ciidda nacaanoo cid kastaaba tahriibtay nafta ceel ku ridaanna tijaartaa curinaysa cudiyey oo ka tallaabaya caadi weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee bakhaarleydii carrawday gaadiidkii carrigeenna iyana way cakiroonoo koodunbay camiraan xamaalkii cindallaahi hiirta soo cararaayee curquunkiisa helaayay cidna biilin karaayey ninba ciidan tolkiiyo ceshadu ka samaystay ayuunbuu camal beelay
inay ciidda nacaan oo cid kastaaba tahriibtay nafta ceel ku ridaanna tijaartaa curinaysa cabsi eebba ma hayso cabsi eebbe ma hayso damiirkood celin maayo dawlad caabida weynay casiiskaan ku hadlaynay bal aan caqiibada eegno cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee culimaynu lahayn culimo ayaynu lahayn culimaynu lahayn calooshoodu fayowdo culimaynu lahayn calooshoodu fayowda hadday caawa ducayso caadil uu aqbalayo carabkoodu tufleeyey markii aan sidan caawa ka cibaado yarayn baan ka caqiido wacnayno roobdoontaa cimrigeedba ciyaalkaa ku filaayo casharka ugu daayey cibaadadii ee arkaaya iyo sujuudaan caadi ahayn oo ciidda laysku xoqaayo iyo safaf laysku cidhiidhiyo ma ciseeye ilaahay quluubtu cabbiraa ciidankaa ducadoodana cirku soo da'adaayo abaarta caranaysa culimaynu lahayn carruurta diinta baraysa oo agoonkii iyo caydhana cuudba aan ku xidhaynin agoonkii iyo caydhana cuudba aan ku xidhaynin ciddii haysa adduunna wax yaraan ku cuslayn ugu soo carbinaysa waxa caawana haysta culimo diimalfuluusa oo doolarkuna cidhbinaysa camal aakhira yeelka ee cuuranaysa adduunka carruuraan waxba haysan kuwa diinta ka caydhshay ciddii soo heli laydna balcad cawlan u soo xidhbay ku culaysinayaanoo diintii bay cabbusheenoo way cidhiidhi gasheenoo cidiyey baran weeye cudiyey oo ka tallaabaya ca'da weeye kableetiya gabaygii cidma dhaafee junuuddani cimrigeedba carriga way degganaydoo cidna may derderaynin colla maynu ahayne yaa jinkii carinaya u samaystay cilaajka cudiyey oo ka tallaabaye ca'da weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee midina ciidan kaloo taa war ciidda gubaayo oo carruurtii naga laayey dilaa aan cidba dhaafin suuqyadii ka cayuuqay isgaadhsiintan cabdow tuugadii casriyaysa ee carabka laamiga raacshe caanadaan ka tegaynin cod buu kugu dhacaa caantaynay ku rabaan iyana waa cadow toosa iyo xukuumaddoo la cunaysa intaasaa caliyow shicibkii cabanayay iyana cawda u gooyaye cadiimka u gargaar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta midanow weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii aan u bixinay madasha abwaanka weli waa fariikamo qodna waxaana abwaan axmed maxamed nuur dhako cidma dhaafo ayuu halka ahaa bal waxaan weydiinaynaa sugaantan kale ee uu bixiyey ama gabaygan kale uu bixiyey baarlamaan ma garan sababtii iyo xilligii uu tiriyey isagoo halkaas si toosan inooga wadi doona bismillaahi raxmaani raxiim baarlamaan ma garan waxaan tiriyey xilligii aynu baarlamaankan ilaa hadda jooga doorannay hal kelmad baa dadka oo dhan ka dhexaysay xisbigu doonahaada ama haybtu doonahaado maanta uun rag wax inoo qabtaa aan dooranno 4 bilood markay fadhiyeen bay iila muuqan waayeen raggii loo ballamay inay yihiin raggani dabeedna xafladdii 18 May 2006 ayaan ka tiriyey gabaygan baarlamaan ma garan bismillaahi raxmaani raxiim wuxuu yidhi baarlamaan ma garan baawarka iyo xilka bulshadanu sidaan baarlamaan ma garan dadkii idin boqraday baahidii wadiya booska ay rabeen inaad buuxisaan baarlamaan ma garan dadka baahanayd dadkii idin bilaye idin baaciyay badhna maalka huray badhna aawadiin inaad soo baxdaan bariya ugu dib jiray buug inay sitaan baarlamaan ma garan bulshadiiyo dadkani abaalkay baxseen inaad buuxisiya inaad baal martaan kii baadhilaa inuu buugu yahay baarlamaan ma garan sidii bilig hillaac bulsho oon qabtaa ugu beerraqaan baryahaba dadkii ku baxnaanin jiray meeshii bugtiyo boogtay ay rabeen inaad baanataan baarlamaan ma garan booskanaad fadhido hawsha baallataal baaxaddeeda iyo boowe waxa shacbigan ugu beegantiin baarlamaan ma garan inta baadi iyo baylahayga maqnayd inaad bacadka kulul u boqoosho iyo inaad baraf qabow u badheedho iyo inaad baafisaan dadku kuu boqraday baarlamaan ma garan ragga beratanteen ahaa 200 bilow 40 iyo 6 baaqiga ah 100 iyo qusuur dadkii baaqda yidhi adna kaala baxay waxay uga badnayd baarlamaan ma garan ilaa nin walba inaadirkii baa la sharxanaa kamuu reer badnayne waxay uga badnayd baarlamaan ma garan raggan kugu bedelay buruudku lahaa badowdayda horaan ammaantay markaan cid kala waayey baarlamaan ma garan raggan kugu bedelay buruudku lahaa dalkanoo burburay bunduq talinayay beeluhu colyiin bulshaduna dhammaan boobaha sitaan iyagoon baqayn balaayada raggii u badheeri jiray boqorka kaashada ee dilka baajin jiray qabsoo baarlamaan
baankaad tagtaa gunna iyo bil baad buurbuuratae baarlamaankii hore berigay jireen berrigaba dhammaan baystayn ma ol hawsha ugu badan barqad ay qabtaan baas iyo rasaas lagu beegayaan ku bogaadin jiray baarlamaankii hore berigay jireen boqollaha dhintaa bisad gaadhi maray ka basiisanaa markay baaba iyo baxaraal buxuur kala soo baxeen berri nabada iyo dhul barwaaqa iyo markay meel barraxan bulshadii dhigeen haddaan kugu beddelay baarlamaan magaraan waxaan adigu biday afartaa badheedh waa baab xusuus lagu beerayo waa baraarujina barteedaa u dah anoon bayda furinaan boqoliye baarlamaankii qaran noogu soo baxow bulshadii lahayd baadhashadan xortaa waan ka boganaya beeldaajiyi iyo birmageydadaan soo bixinaya raggii loo ballamay nooma soo bixina malaabiigiban isla buuraya baarlamaankii qaran noogu soo baxow saa u badan tihiin qurbihii iyo baddaad beryahaba jirtaye buug noo faloo beri uu nin qoray wax lagaa bariyo buuq iyo jikaar baarlamaankan yurub aa ka bowsateen hayla soo bixina horta dhaqanka barabeledkaaga yaal baarlamaankii qaran noogu soo baxow miyaad baadhay weli dalkaagii burburay barta siduu ku yimi dadku waa bestii haan boosabaa caana aan badnayn loogu biiriyaa hadba baasha ay ka butaacisaan fur ku beegayee hayin buuxsamaa loo baahan yahe layli buubaya aayahan bulshada ma badbaadin karo baarlamaankii qaran noogu soo baxow kalabaydhis iyo baab tanaasulay bulshadani godkii kaga soo baxdaye in laysbeejiyo la bardoodamiyo ruuxba bartuu qabsadoo bir in loogu jiro haddii lagu ballamo nabad baahsan iyo barkhad lama heleen beeluhu midnimo kuma ay baryeen adna baarlamaan kumaad soo baxdeen baarlamaankii qaran noogu soo baxow haddaad buuq dagaal burmad iyo tolla ay ku bilaabataan beel iyo axsaab u bardoodantaan abaalkii bulshada sow hashii barqada bacaad lagu lisiyo biyo uu coldhuray ugumaad beddelin baarlamaankii qaran noogu soo baxow bulshadii lahayd bal xukuumaddii iyo guurti buuxda iyo baarlamaanka iyagu hays biirsadaan waa baalashii lagu boodaya ee barha wada maraan riyadoodii been saddexdii nin baal haddaa kala baxdaan midna uu bakhtiyo badhna roonka maro rajadii bulshadu soomay burburin baarlamaankii qaran noogu soo baxow belo maad samayn dalla maad burburin maydun gelin bayuur anna been abuur nin bilaabaya iyo barxun hayga filin waxaan kuu boqraday kumelihii ka baydh xaqa baal maroo baqa kuguma odhan waxsee gabay badihii iiga soo burqaday beed waxaannu nahay laba baarqaboo isku soo baxsaday bartankooda yaal bulsho waxaannu nahay kay aqoon bideen bulsho waxaannu nahay kay aqoon bideen bohoshuu ku rido dirqi iyo tubbaas kaga soo baxdo bulsho waxaannu nahay 100 jeer duntoo soo baaba'doo bayr yeelato waan baqanaya maxay beenitari baarlamaankii qaran noogu soo baxow kaftan aan badnayn beer xaadhanoo aan bukaan lahayn aan bilaabanne baarlamaankan qaran bidhaantiisu tahay bishmihii iyo qalbigana xusbi loo bannaday beerka iyo naftuna beelihii yihiin baahidan shacbiga ma bogsiin karaa baritiya waxqabad waa baabu yaal haddaan hadalka badhay aan baaciye beelaha markaa codka uga bugteen ballan iyo axdi baa ku ballaadhiseen haddaan booskan tago beel yahay inaan kugu baahi tiro xusbigina ku baadh inaan laga baxayn baabkaa xusbiga burmad inaannu nahay bartaa kuu fadhiyo boolatii ka wada isagana bilaa kaga soo baxdeen labadiiba way soo dhaarteen ma garanaysa bulshadana dorhaad barqadii dhoweyd baara ayaa kitaab baallaha jarteen inaa baahi qaran wada buuxisaan bulshadana sinaan ku boqoolisaan xaqa beegsataan haye baarlamaan saddexdii nambaab ma isburinayaan buur horta intaan wax kaleba loo tegin saddexdii nambaab ma isburinayaan dabbaxaaya iyo baasroolkii iyo adigaa biyii bac ku wada sitee baarlamaan ma garan midkaad ka bixin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay weli waxaanu ku guda jirnaa waa madasha abwaanka daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow haddana waxaan jecel lahay abwaankii oo weli ag fadhiya barnaamijkiina aynu ku guda jirno waa abwaan axmed maxamed nuur dhako waxaana idiin soo tabinaya anigoo cabdiweli awdiiriye guuleed waa farsamadii yaasiin balbalaashe bal abwaanka waxaan jeclaysanay mid ka mid a suugaantiisa faraha badan oo u magac bixiyey magaceed jiryey may baad ahayd goortuu bixiyey sanadkii iyo ujeeddadu bismillaahi raxmaani raxiim magaceed jiryey may bay ahayd waxaan ugu talagalay un xuska 18 May markaa kolley maalintaasunbay indhiib looga hadlaysaa maalintaa ayay xus ahaan ay u tahay wuxuu yidhi ummad yahay maqloo bishan may la yidhi inta maalin wacan maskab iyo xornimo magacaa hesheen mawla kuugu daray aan idiin marshee maqalkiinna fura may eedhi marka hore jalleec
burca maalintii iyadoo macangagii wuxuu muruq lahaa maymay hub heelaynagu meersan yiin manaxaanadii mawdka u banbaxay mar aan la iska filin sida mawjadaha mitaxaabiyeen magacitiriyey meebay ahayd meesha saadku yaal kama maarannee madheera iyo markaan cadaad lay mulkiyeen magacitiriyey meebay ahayd hargeysadan markii mirta laysku helay mullatari cadkii maryihii iyo dirays magmaguujiyeen madaxdii fadhiday kolay moorgan tahay madaxay bannaan midba meel ka kuday magacitiriyey meebay ahayd maalin 91 ee dhiinkan mudan inaydaan mar kale mugdigii gelayn burca maalinta dhab u muujiseen magacitiriyey meebay ahayd ina mowqifka ka midaysantiin dastuurkii markaa cod ku muujiseen magacitiriyey meebay ahayd intaa soo masalo midna been ahayn amarakatiin markan hoos u dayo marmar baan idhaa bishana malaha moorada sidee maylaan la baxa maylaan la baxa garoo maxamedow may waxa kamid ah maalmo caanaho adduunyadan maliyan muslim iyo kufaar maqrib laga maqlo maqshir laga ogyahay magacitiriyey waa maalintii arladoo mugdiya dadku yahay madluun dhiig miirati iyo cadow maadharihii ku dhex meerayo maal haysta iyo ninkii magacale iyo murtikii tirshaba intuu soo marsaday maata iyo dumar midhmirkii ka hadhay intay mayracdaan halkii aad martaba maydkoodu yaal mirta dhexe guryaha maqsinada jabsho shiikh muuminoo midhna aan samayn marwaduu qabiya macaanay walaal iyo mudantu dhalay laga meersado isna madaxago iyagana markada qasab lagu marsado iyadoo meel kastaba xamar maamusho dhulku yahay mubaax oo mareennada iyo militariga badan booliis milyuun maryamadow darwiish guul wada maraan midqiyaynayaan oo miigag iyo maraakiib dagaal madaaficda culus ay muush ka tahay tignikana maliyaan magacitiriyey waa maalintii rag mujaahid oo miigan oo mintidii miinooyinkii madax u galay waa maalintii nin maamulo geesi maadhar iyo marley iyo haween midaan ahay aqoon oo maanka iyo maskaxdiisu tahay sida lay mirtiro aan muruqayga iyo tusay mawjado mindiduu sitayna ka maroorsadaan kaga muday wadnaha magacitiriyey waa maalintii daxal maara iyo madowgii bulshada maskaxdooda galay laga maydhay ee mudaniya marwaba laga dhigay mabsuud magacitiriyey waa maalintii madaxeeda xamar minta loo rogay magacay lahayd ifka laga masaxay waa maalintii macaankay cuneen malabkay jaqeen maal waxay bulshada ka maroojiyeen aan murta ugu daran dacar mudsaydi jihaad maalintii uu ugu mudnaa aan mur ka siiye calanna meybay ahayd calankeennan mudan midabada ku yaal mara khaliya oo meel laga luliyo macnaalay in ninkii moodayadow masaladu watiyo miisaanka culus aan muujiyo midhmidhiigaho marka hore casaan waa midabka dhiig murugiya dagaal iyo holac la maro ku muquuni cadow arladana mulkiya marka xiga caddaan nabaday macaan xidigtaa madow maydaan fahmine midabadan isgalay mar bay qurux u tahay macnaheeda kale muddo badan shantan muxubbada u qabay macdan iga luntiyo dahab iga maqnaa shantan moodi jiray markaan soo hubsaday inay maar ahayd mugdi inaan ka dhigay ayay maragu tahay midka kalena waa midab doogaho milicsiga indhuhu ay muhanayaan marka qori la rido meel la iska dhigo midowday bulshadu nolol muujiyaan madarkooda iyo midhahoo baxiya mashaqada nimcada isna laga metelay murti qaaliina ku malaasanto macbuud waa ilaah maxamedna rasuul mid u gaara tahay laa ilaaha illa muxammad rasuulullah macbuud waa ilaah maxamedna rasuul mid u gaara tahay muslimnimo dhab iyo maamuus cadliya bulshadoo masa ah ayay maragu tahay ee dhiinkan meey waa maalintii aan muujiyey la qiray mas-uul madaxdii jirtay iyo maamul koonfureed murugana siyaad markay ugu badneed meey bay ahayd markay wada hadleen mingistiya isagu macshar wuxuu ka yidhi muruq iyo awood imuquunisoo ay igu maraan miyay leeyihiin maya baa la yidhi mar haddaan ka raray halkay maxaastutiil raggoodii marsaday maxay sheegayaan yay maagi karaa midigtiisa oo midhmidh loo galiyo magan buu fishaye maarrihii indhaha lagu mudsadiyo wixii may qabsaday meesha sooma dhigan kol maray kale aad liibiya marqabay madaxdii carbeed maalma hoos galgalay maryo xooristii yurub mood miciin midba wuxuu ka helay soo macajille muusannow bulshada beriya kula dhex meer kuman maytiyo malagoodu galay yana soo maqiiq oo miyay soo noqdeen soo lama mirtirin meeqaa sarkaal madax lagaga dilay imisaa nin mudan maalmahaad ku gigay raguu moodi jiray masaa'ib dadcuna maydkoodu yaal mucjisiya la yaab mahadhooyinkaa markan koonfur baday meyba ahayd dantii maqal koonfureey isugee midhkaa kaama maaranniyo marmarsinyaha maalmahan waddaan waa aan mar kale ku mahoombiye marmarsinyahaa ciddaad marin lahayd runkaa moodileed way mootan yihin raggan maanta kacay ee miiggan iyo madficii ogaa mari maysa tani waana maan barray iyo maan bilaal mid aan suurtogelin macnaha waddaan mayse maalin wacankaa mudhuxsadoo dhulkii waan mulkiye madax qaaliyoo nugu maamushiyo calan muujinaye muqdishoy walaal kaa maaranaya meeshaada joog ama nugu masayr
nugu noqo makhluuq meeshaan tagnaba mawdaa ka hay muraaraa dilaac qarax sida madfaca wuxuu mawla qoray lama maanacee muqdishay walaal kaa maaranaya meeshaada joog wanka macashal iyo mushtar diranaya badan maalka weyn miida dawsanna midha beeranna macdan guranaya geelii miyiga iska maalaya muqdishay walaal intaan kaa maqnayn allah ma haddalee mabsuud baanu nee meeshaada joog maxog beerashi iyo muuska iyo cambii moofo iyo macsara meeqaa rabtaan waan ka maaranaye muqdishay walaal meeshaada joog assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waa abwaankii oo weli aan ka sugaynay maaxda ku jirta maskaxdiisa waa anigoo cabdiweli ah duubistii iyo farsamadii yaasiin balbalaashe abwaanka waxaan jecel lahay bal gabaygan oo la magac baxay ictiraaf allah kuu haya bal goorta uu tiriyey xilliguu tiriyey bal inuu abwaanku noo sheego halkaana inooga sii wado bismillaahi raxmaani raxiim gabaygan waxaan tiriyey adigu 79 xilligaas oo adigu dabayla xamari aad moodaysa inay soo furmeen ayaan isiri intay taalkaaga ku gufee meeshana wixii yaalay bal dadka intaan xasuusnayn xasuusi marka ictiraaf allah ku haya ku haladeegtaada baa leeyahay wuxuu yiri hal abuurka maanso iyo tixiya heella iyo jiifto waa hadiyad uu eebahay qof ugu hiishaaye hanti iyo waxaan xoola jarin hiba weeyaane higaad iyo isku lagu bartana horeba loo waa col wuu hurin og yahay col wuu hurin og yahay nabadna waa col wuu hurin og yahay nabadna hal abuurka maansiya tixiya heella iyo jiifto waa hadiyad uu eebahay qof ugu hiishaaye hanti iyo waxaan xoola jarin hiba weeyaane higaad iyo isku lagu bartana horeba loo waa col wuu hurin og yahay nabadna waa lagu horseedaaye hayaay iyo marbuu muusannow habar wac keenaaye hubka dhigisna wuu yahay dilkaa lagu hagoogtaa hiirtaanya raagtay iyo marbuu godab hujuumaaye hengef iyo wuxuu baajiyaa halis colaadeed marbuu hiiftan iyo caayihi iyo hebel cambaareeye marna hanad waxtaray baa ammaan loogu hidiyaa habaarkiisu waa kow ducana hore ka aamiine qof waliba halkuu doonayuu kaga hagaagaaye anna belo hargaha uma tumiyo hediya laayaane himiilada shacbiga meelsan baan ugu hagaajaaye maantana halkay taagan tahay ballanka asaawo calankan habeen iyo dharaar hadhimadow daayey calankan harraadkiiyo u maray hawkarkiiyo oonka calankan u haajiray axmaar hoosta uga ruubtay calankii haween iyo carruur milicdu noo haysay calankii haliyey waxaan lahaa iilka ugu hoyday badhna hanaqu inta uu go'ay hoombi soconayso dawladiga hu badan calankii aan uga hakoon waayey isaguna hargaysay lahaa ee hibasha ooyayey iyo xamar hannaankay waddaa waaba kala hab markii aa hesheen kuwii lahaa caraha haystaan bal kuwii idin hoggaanbaray misena heerya idin saaray habeen seexan waa iyo kuwii helayey kiiskiinna harka galay kuwii seexin jiray hebel kastoo dhiiran ee laga habraday aan indhaha cidi ku haynaynin soydinkaa habkii ay rabeen hore u sii qaaday soydinkaa raggaa waan hirreeye hilinu soo jeexay soydinkaa wax lama huuriye ee kala haddaaraya umushii markuu nabarku helay dhaarka hagaf siisay inaanan ina ragow kula hadlayn hoyna kula seexan habeenkay ladnaatana sidii hebad u sheekaysay ma habkeedii baan nahay yadan hiban xanuunkiiye hitler iyo yuhuud tii u baday igaga hiir weyn hitler iyo yuhuud tii u baday igaga hiir weynee wax kastoo i helaa kuwan ogaa uma hiloobayo wax kastoo i helaa kuwan ogaa uma hiloobayo ciiddaydan hodankaa mar kale layga hiri maayo haddaan kala horboobo iyo haddaan kala yar haanfiidho anaa kala hambaysana qof kale hooye odhan maayo iyagoo halkaa ii fadhiya oo haybad iyo muuq leh hablahayga iyo hooyadood hoo ku rari maayo lugta fidi haddee iyo kacaan hooy u gelin maayo war anugu aan ishaystay nin kale ii hanjabi maayo hubka se aa iskaga celin kartaan horarkan kuu ooman waa hadafkan somalilan aa hirgelisaani danteennaynu haa wada nidhaa hagarla'aaneede iyo hawlgalkeeda oo midnimo lagu habeeyaaye haghagiyo khilaafkeennu waa hawsha loo wadee ictiraaf allah kuu hayee ku haladagtaada afartaa haadii gabayga iyo calanka heestiidhe taariikh horaan soo marriyo haatan iyo guuldhe hambalyada dalkayga hirgalay hadiyaddiisiidhe intaa waan habeeyey haddaan hore u sii daayo dadweynahan habowga ah haddaan hadal yar weyddiiyo haddii aan la hananayn dhulkii holaca loo jiidhay oo shalay kuwii haystay uun hool lo odhanayo halgankii iyo dagaalkii maxaa loo hirgelinayay hantideennii iyo maal wixii naga huruunsoobay ardaydii iyagoo aan hubsidan helayey baabaagu horintii kaaruhu jaray uu hilib ka yeelayey hoobiyaha madfaca BMkii ina hadhaynayay hooyadii jantaa lala dhacay iyo hareeraftii suuga habaas dhaxana iyo hooyla'aan halistii aan gaadhnay wargeljirii maxaa loo halgay halaha maalayey
mise xaydhaweyntii dab huray hamis ku siinaysay hedduu ay u geysaan wax kale uga hagaagaynin ma habkeedii baan nahay yadaan wax uga hoosayni saddex se idin hodayaan shacbiga soo hordhigaya saddex idin hodaya ayaan shacbiga soo hordhigayaa ubadkiisu nimu hoolan jiro haysta tigidhkiisa iyo qaar hunguri qaaday oo hilib yar loo tuuray iyo qaar hungoobay oo iyana jaga hinaasoobay saddexdaa habaariyay wax daran ku hadoodiline hanti kugu furfure iyo qabiil soo huwadaaba hilibkiinna nimankii bartay soo horkacayaane shalay kuwan hortegey aan walaal hagar la moodayay iyaguna halbowlaha ijare heeray boqontayda imakana ihoo waa adiga habacsanaantaadhe hitler iyo yuhuudtii u baday igaga hiir weyne wax kastoo ihela kuwan ogaa uma hiloobayo ciidaydan hodankaa mar kale layga hiri maayo haddaan kala horboobo iyo haddaan kala yar hanfiro anaa kala hambaysana qof kale hooy odhan maayo iyagoo halkaa ii fadhiyo haybad iyo muuqle hablahayga iyo hooyadood hoog ku rari maayo lugta fidi haddee iyo kacaan hoy u gelin maayo war anugu aan ishayste nin kale ii hanjabi maayo hubka se aa iskaga celin kartaan horarkan kuu ooman waa hadafkan somalilanaa hirgelisaane danteennaynu haa wada nidhaa hagarla'aaneede iyo hawlgalkeedoo midnimo lagu habeeyaae haghagiyo khilaafkeennu waa hawsha loo wadee ictiraaf allah kuu hayee ku haladegtaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonaynaa inaan ku soo gabagabayno gabayga la magac baxay waxa weeye mujaahid iyo xilligii uu sameeyey abwaan axmed maxamed nuur dhako isagaana inoo sheegi doonaa halkaana inooga wadi doonaa bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye mujaahid waxaan ugu talagalay maalintan shuhaadada inaan ugu duceeyo mujaahidiintii dhimatay wixii noola lagu xuso waxaan sameeyey 1997 xilligaasoo aad moodaysay aniga lafteedii waxaan tallaabay 87kii 97kii baan gabiga sameeyey oo aan xisaab xidh yara sameeyey 10 sannadood markaa waa gabay hawlo badan ku jiraan inta badanna waxaan ugu talagalay shuhaadadoodan ugu ducaynaya waxa magaciisa la yiraahdo waxa weeye mujaahid wuxuu yiri murti layga da'weyn maskaxna layga badnaa milkaana layga lahaa madashan ka hadlayo dadkan meesha ka buuxa anigoon u mudnayn waxaan maanta dalkeena uga muuqday dhexdiisa mikrofoonka u qaataan musanow la wareegay maalmahaynu xusayniya macnihii halgankeena oo isii masaxaya ayaan meel ka arkaayo murugan gami waayay sinamay magacaabi oo meeshaada la seexay mabda'ayga u weynina xuskan maanta la jooga milgihiisa iyo qiimahan muujiye weeye maalin weeye shuhaado midablow calankeenan madashana fadhida iyo macaanay nabadda markii loo xarbiyayay maatadii lagu laayay iyo mudanow odayaasha maskaxdii ardayda oo amiiganow jabhadkii macnuhu waa xusideedo maalin weeye shuhaado maalintan lixla asnay burcaduurayna meydku sida maadha istulay miyadaan garanayn macnuhu waa xusideedo maalin weeye shuhaado lixlahan magacaabay mawjadii ka horraysiiye malyuumaad ka dambeeyey isku soo wada miiroo mowqifkii halgankeenna wuxuu mawd ku haleeliyo wixii aad madi weyday macnuhu waa xusideedo maalin weeye shuhaado siidhkii ay ku madheen baan midhihiisii cunaayo in la soo magac qaadiyo xusba way mudan yiine in ilaah ka mamnuuco marinkeeda cadaabta oo la maquursho fardowsana mara faataxadeeda maray oo hadiyeynaye midharkii ka dambeeyey iyo inta maanta ka nool ab mujaahid xalaala mugdi bay ku jiraane in ilaahu miciinana mara faataxadeeda midhse wayga su'aalay miyaydaan odhanaynin yaa mujaahid xalaalahoo miciin loo dalbayaa inuu mara ducadaydan ilaa markii naynta wan la galay wada mujaahid bay noqotee ka xalaasha aan mujaahid xalaala marinkiisa ku siiyo wuxuu yidhi waxa weeye mujaahid maatadii ololaysiiyo muusanowga dadkiisa isagoon mabda hoose waxba meel uga oolin hadhow aad xil heshid ama aad hadhow cayn ka noqotid isagoon mabda hoose waxba meel uga oolin waa ninkii maaraha qaatay ee murugtaa shicibkiisa inuu mawd ka xigayo maray dhaar culus weeye waxa weeye mujaahid magaalooyin siraadan macdaarkii iyo daaskiiyo macaashku guranayay makhribkii ka dhaqaaqay mici weyne libaax iyo manaxaanka dhurwaaga intuu meel la huluushay martiyey ee wax la quutay waxa weeye mujaahid kuwii buurta madow sida meelka istaagay iyagoon madfac haysan laga maagayay weeye waxa weeye mujaahid meydii ay dhaawac meel lagu tuuriyo mid nool daa hadalkiisa oo cadowgaa ku madiixi kuwii meydu xambaartay meesha shiikh iyo qaaxo u maleegtay xanjeerka waxa weeye mujaahid halgankaynu marayna markuu dhaawac ku gaadho inuu maalin isdhowraa murtakayla ahayd macdantay kaga taalaan dheecaankii laga maydhin mar labaad galay weeye waxa weeye mujaahid gaajo kii mudanayey mallegmaayee harraad mirqinka dhuuban ahaa midicdu aanay karayn marka ay naftu haysana cidna aan martiyeyne maansadii cagale iyo diinka meelahan joogay masaska kii qalanayay waxa weeye mujaahid miyigaa niman jooga yagoon maal badan haysanoo maatidoodii basayso hadba neefka macaada moodhar loogu ridaayey waxa weeye mujaahid dhakhtarkiina mudaayey waxa weeye mujaahid midharkii dabadaayee maalka soo bixinayey waxa weeye mujaahid
meydii aynu ogayn mawjadii faqashtii sida daadka la mooso iyagoon ka mildhaawin kuwii maaxayay weeye waxa weeye mujaahid markii uu na xoreeyey meeshii uu baraxayay macnihii ka abuurmay markii uu garan waayey waa markay wareegga labadii habar horta gashay meeshii uu baraxayay macnihii ka abuurmay markii uu garan waayey inta maanta habsawday inta maanku isdhaafay murgay ee isdhex yaacay xilla aan u masayrin mushtaraan u dhaqaaqin meelaha iska taagan dadku mooda maraanka laga madsada weeye kuwa weeye mujaahido mugdi bay ku jiraan in ilaahu maciinana mar faataxadeeda midharkan dadafeeyina maqlo ilaaga midharkan dadafeeyina maqlo ilaaga wuxuu yiri markii la ismudmudayay mawdka loo tartamayay la mawd baa loo tartamayay markii la ismudmudayay mawdka loo tartamayay niman aaga ka muuqano adiisun ku maqnaa meesha la isku dilayna ka maleegan ogaa maantana loo fadhiyay nin madaxiis iyo fanka markuu suuqa marayana meeshan aanu xoreynay kuma xafsan yaqaana kaasi ma mujaahid kaasi ma mujaahid markuu haystay afweynaba midaan daacad ahayn oo intuu maal ka damsiiyay mabdiiisu ahaa maalmahawdka ku dhuumo iyo maadharkii ku talaabay midna ma mujaahid labadaba cid uma halgaman iyagaba la badbaadiyo lafooda la baxsanayay iyo maadharkii ku talaabay midna ma mujaahid wuxuu yiri maalintii xil la saaro ismaqiiqaha waalan maalintii xil la saaro ismaqiiqaha waalan meel aan ka xishoonin kuwa maanta xoreeyay mar labaad qixinaya madafiic ku horaya meeshu doonaha joogay kaasina waabu ismayray haduu ahaana waabu ismayro miciinkii cuna weeyisna ma mujaahid ninkan maanta xilkiisu uga muuqanin laantan meerta weeye adduuno markiisu heli laayay muqdisho uu ka hilaacay mabda'a ka xumaado kaasina ma mujaahid kuwa meelahan jooga joornaalkay ka murmaan iyo musanow la wareega dadku ay mabda'ooda iyo moraalkooda khaldaan oo murug ay ku ridaan mashruucooduba dhaafin dadku moraal dhisbu baahay moraal jibin uma baahna dadku ay mabda'ooda iyo moraalkooda khaldaan oo murug ay ku ridaan mashruucooduba dhaafin kuwaasay la macyiino kursi weeye masayro iyana ma mujaahid murtidaaba lafteedu marmar doonta dhan xiirkee haddaan maansha Allah midhii ku bilaabay wegarna aan marilaho bal maanta dhan waxay tartay haddaan sheegay waxyaabii ka khaldamayna aslamta lafteeda anaga buleey murtidaaba lafteedu marmar doonta dhan xiirkee haddaan maansha Allah midhii ku bilaabay wegarna aan marilaho runtu waa murqadhaalo dadka way mudmudaayo cidna mawdu ma keento anna maanta afkaygu mubaax weeye cabdow mililkii la dadayena maan dhawaan saraya ee miriye meeye ibraahim xasan may maqlaya iima muuqdo rashiido wadaadidna imoogo inay yunisna mooyi ee miyaan muuse dambaabay haddaan maanta idhaaho macangagiina dilayay markaa ku kacdeen inaad iiga miciinto iigumaydun maqnayne mindiyaa sidateeno dhiiggaygii u miranayay idinka u mahanayay hadduu maata gumaaday madaafiic ku garaacay ama kaara marsiiyey markii aan qabsateen maydinkaa malab siiyey miyaydaan la masoobin maydinkaa malab siiyey miyaydaan la masoobin saleebaan midhahaygan haddaad ceeb u malayso adigoo madal joogiyo macshar laysku arkayo maradu kaa yara ciirtay ka miliiliic jalleeca maxamedow kugu dhaafa iyo ninkay meele xanuuntee marta qaada yidhaa iyo ma aamiciin midhkaana waa fahanteen beentu waa iga mamnuuca anaa soo maray waayo dirayskeennan madow mujaahidkii gashadaa meel kastuu cagta saaro madaxweyne sidiisa loo diyaarsho macsuumadow tuurow loo marti qaado saddex inan oo jabadii hadday magaalo yimaadaan magaalada dhan iyaga u shaqaynaysa inamada gogosha baarbay garata madaxweyne sidiisa loo diyaarsho macsuumadow tuurow loo marti qaado maygaagow indhaweydna esbar ruuxa maqlaa madaxu isqabtaa sidii aad masu sheegtay buu meeshaba kaaga kacaaye maxaa keenay dareewal waaba maalmadhexdooda masaalkaa kala dheer siilaayo maskaxdaada iyo balmaankaaga ka baadho macneeya oo isu sheega wuxuu yidhi tolwaayow rag ismiidhay meeheraday ku shurkeen maan dad baa lagu sheegay mudacyeelafafkooda haddii ay ku murmaan ninka meeluu la jeestay ee maqalkii cid u dhiibtay ee mulkilihii dadafeeyey haddaan wuxuu yidhi ninka meeluu la jeestay maqalkii cid u dhiibtay mulkilihii dadafeeyey haddaan maandha la toogan milicdunbuu baxaa macnaha tahay weeye isna ha u murugoonin nin kasta inta xil loo dhibay baa la yidhi qayriyada togo waxaa tidhahaa isna micdi ma sheegan karto maalintii xilkii laga qaadayna wuxuu yidhi diba habaynta esnan baa maxaad habaynadaa masaxae macnaha tahay weeye esna ha u murugoonin masaxankaa sharafteenna wuxuu yidhi agoon meel lama geeyo naafo looma miciino jabhaddii waa iska madluun madaxdaan sugaynayba mee iyo mooyi midba waa mid ha eegto marka uu yeelo jeestana kii kalea madaxiis iyo meersanaya boqnaayoo sida mawdaba taagan masaxankaa sharafteenna iyo milgahaynu lahayn iyo magacaygan la waayay ee dayday laygu masaalay estumay u sinayne intaa aan magacaabiyo inaan miimka ka waayay iyo madaxdunbaan wax ka saaray haddaynu maanta habaarana kama maarmi karayno ducana waanay mutaysan markaasuun kula quusto oo in ilaah mabda'ooda iyo mowqifkooda hagaajay muuqdaan ay wax noqdaan mara faataxadeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kaas waxa ahaa gabaygii la baxay waxa weeye mujaahid gabagabada ahaa ee uu inoo marinayay abwaan axmed
maxamed nuur dhako abwaan axmed maxamed nuur dhako sugaantiisa halkan kuma soo koobi karno waxaanu leenahay abwaanka abwaan iyaad salaamaysaa intaynan barnaamij ka bixin bismillaahi raxmaan raxiim dadku way ba kala wax la wada salaami karaya ma baahee de waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland waxaan salaamayaa ummadda islaamka waxaan salaamayaa ummadda reer Hargeysa kamid waxaan salaamayaa ummadda Burcee aan la joogo waxaan salaamayaa marfaska iyaga gabya iyo golka fuul iyo abwaanada nala jooga oo uu kamid yahay abwaan Cabdilaahi Yuusuf Nileela geed ku magac dheer abwaan Boobe abwaan Idris waxa kamid ah abwaan Muxtaar waxa iyo gudoomiyaha waxa soo abwaana isku iyo majliskan gabay iyo golka fuul salaamaya ummadda inta kale ana waxaan salaamaya wixii magacayga iyo muuqayga yaqaana dhamaantood waan salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal waxaad naga daawanaysaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waa baraha bulshada ku kulanto tabiyamedia.com waxaad naga daawan doontaan haqabtiremedia.com waxaad kaloo naga daawan doontaan haddii ilaahay raalli ka noqdo YouTube-ka Yaasiin Balbalaashe waa anigoo ah Cabdiweli Awdiiriye Guuleed farsamadii isku dubridkii Yaasiin Balbalaashe tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan iskaga tagaynaa isma dhaafno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh